magaca عبد أبوكر cabdi abuukar حسين maxaa lagu soo qabto qabanaysa shaqada hadda ku dhex jirta aniga banaankan ceelasha laga soo qabtay shaqada ku jirana hadda waxaa waaye meelaha yani guri la dhisaa qof uu leeyahay u tagnay gurigaasaan yani wax weydiinay kadib saasaan ugu soo maxaa weydiiseen lacaan weydiinay oo noocee caadi la si shaqsi ahaan wax wey saddexdeen ahaanteen wax weydiisanay maya qaabkay ku weydiisaneen amni maa ku weydiisaneen dadka macnaha ya maxaa ku weydiisaneen sababta ku amni maa ku weydiinaysa wixii aa kugu soo qabto saxa ka hadal adig waxaan lagu soo qabtay gurigaas lacaan weydiinay magaca nimankaas kalena ku weydiinay magaca sheeg shabaab magaca shabaab aa ku weydiiseen shabaab baa nahay lacagta amniga aan kaa rabnaa haddan aya waana ka tagin kadibna ciidanka noo imaan waa sax hawshaas ilaa meeqa ku dhex jirta baadii 2 sano camal magaca shabaab aa lacag ku qaadanayseen ya guryaha macnaha ceelasha miyaa qaybta ceelasha maa qaabilsanadeen maxaa qaabilsanaana meesha markaas joognaa anaga tegayna maaha shabaab maba lihinba laakiin marka meesha markaas aan joogno oo aragna wax ku aragnaan tegayna bis magaca shabaab waa ku qaraabanayseen bas si fiican ya si fiican magacaadana igu soo celi ya magacaada cabdi abuukar xuseen adoo xuroo maskaxdaada fiyowdahay oo taama si fiican ha ya si fiican oo cid ku qasbeeda maa jirto Maya. wixii lagu soo qabto sax soo maa si fiican ya ha ama jirdil iyo hadda wax lagu geysto maya magacaada igu soo celi cabdi abuukar xuseen magacaas 2 sana ku qaraabanayseen si fiican ya ha oo magaca oo shabaab ii soo fadhiisaday kaas kale magacaada saddexan magacay xasan kalbaay xuseen xasan kalbaay xuseen xasan kalbaay xuseen amsadii maxaa lagaa soo qabta intee lagaa soo qabta isku meelana laga soo qabtay macna waxaa waaye dad oo xarfaan oo meelahaas iska qaraabtaan wayaan dadka guryaha dhisanayaan u tegaynaynin waxaasaan ahay lacagna siiyaan lehaynay maxaa ahtaa raadni kuma aanu laheeno waa iska qaraadoon iyo shaqa la-aan baa noo geysay ma ahan maxaa tahay aa dheheeda ya maxaa tahay shabaabaan ahaan lehaynay lacagta amniga shabaabaan ahaan lehaynay saasaan lacag u weydiihaynay kii wax ka helana wax qaadayn kan kalena waa iska tegayay guriga dhismaha ka socdo ya ha meeqa sana ku dhex jirta sida lagu sheegay waa 2 sano 2 sana ku dhex jirta magaca xasan kalbaay xuseen magaca ku qaraabanaysana waa ku sheegay igu soo celi halaa أنا شباب أنا دي نص هو قادين شباب أنا ما لقنا كمالين غير كمالين laakiin waa ku qaraabanaysa ya guryaha ku tegay lacagta amniga nahay shabaab nahay lacagta amnigana sii soma ya 2 sano waa ku dhex jirta intee degantahay أدينا مثل البر adiga intee degantahay adiga ceelash soo istaag kac magaca ii sheeg cimaamada dhig cimaamada kan idib cimaamada hoos gasho axmed maxamed ku dare dhamaystir axmed maxamed samatar miya ku celi in laba reer maxaa lagu soo qabtay sida nimanka ii sheegeen lama rabo shaksiyada maxaa dheheeday kor u hadal adiga adin baa lagu qasbooyaa mase wixii lagu soo qabto saxa haye soo jeedsada soo fiiri kaamirada haye maxaa ku dhehida lacagna sii sababta u qaaday ma tuugsanaysay lacagta amniga keena magaca shabaabaa ku qaadanaysay meeqa sana hawshaan ku dhex jirta ya 2 sano magaca ku qaraabada 2 sano ii sheeg shabaab aan nahay ya lacagta amnigan kaa rabnaa oo dhismaha ya magacaada saddexan igu soo celi axmed kor u hadal dee adiga
magaca ku qaraabanaysa kor ugu heshay أحمد محمد magaca 2 sano ku qaraabanaysa kor u hadalay أحمد محمد walaal magaca kaliya ay ugu celcelinay الشباب ya ما شباب shabaabata أنا شباب مين laakiin kor u hadalay shabaab ma ahay laakiin magaca shabaab ku qaraabay si xayaat loo hadalay hatta في حياة ترى والله يا أخي أنا شباب مين لكن ما قاعد قرابين يا شباب magaca shabaab ku qaraabanaysa 2 sano muddo meeqo 2 sano guriga dhismaha teedin guriga intayna waxaan weydiinana hadaan ka weyn oo ka tagayna qofaan handadayna ma shifto qofaan laakiin shabaab aan lacagta amniga soo tuura dhigi soo tuura ha intee deganta أنا محمد عبدنا ha محمد عبدنا saddexdeen intee isku barateen بس نقرأ ورا وصلنا قرأ soo dhaw markaan isku soo dhawaado soo fadhiis kursi la soo bax soo dhaw hoos ka soo gal maxaa ha hoos ka soo gal saddexdeen intee isku barateen عمل أشكبر محمد ha عمل xamar intee سيبيان saybiyaano isku barateen ninkan ani calisha isku baran laakiin ninkan seebiyaan labadan sidoo kale seebiyaan isku baran ninkaas ceelasha isku barateen laakiin kan saybiyaano isku barateen si fiican go'aan waxaa ku qaadatay inaad magaca shabaab ku qaraabataan ama ku noolaataan si fiican ha ha waa marmaraan samayn jirna markay dhacdo laakiin go-aan buuxo oo toos yani wax ma lahayn shabaab ada marka in ka soo qabato guryaha imaanaysa dhismaa jiro dhismahaas waa soo imaanaysa lambarkaa ka qoranaysa shabaab ana lacagta amniga soo tuur ha si fiican ya ha haye warku waa horaan kuga adeynaya saan hadda macnaha aan kuu sheegay waxaas macnaha waa iskaga qaraabanayna anigu raadna kuma aan yihin waa saan hore kugu sheegay walaalkay bariiskaa kaa soo galay ya bariiskaa kaa galay de waa Hey. waa ku adeeyaa waa sax marka kuu sheegayaan waa sidaas ay kuu sheegayaan hadda nimankaas anagu shaqana kuma helin weli ma la kulanteen lambara ayaga kamid oo idin soo wacay ileen lambarada waa la raadinaa mogta magaca shabaab mar walba oo shabaab idin soo waca mar walba haye maxay leeyihin waa nushaan jebi jira annagana waa iska tuuri jirnaa waa lafti saasan ha waa iska tuuri jirna marka nushaan jebaan barbalankeeda dhan meel iska dhigi jirta haye macnaha magacooda ku qaraabanaysiin lambarkay soo ogaanayaan dadka u tagaya dadka xagga tagaya haye kaas ninkii oo bandaan qatuu ka baxan saas ayaadna waa saas sida lagu sheegay waa ma lagu soo wacday shaksiyadaada in badan haye maxay ku dhaheen waxaad sheeganaysiin waxaas haddaynaan laftu bimacnaa sida lagu sheegay laftu mar hadday noo soo jibaan laftooda waa iska xiran lafkana iska raadsanaya haye waa sidaas hore ninka kuu sheegay waa na soo wici jireen waa noo soo hanjib jireen hadda yaa idin soo qabtay saddexdiina macnaha qaabkeelin kusoo qabtay hadda nimankan ciidanka ciidanka oo intee waa ciidanka ciidanka booliiskana soo qabtay saldhigga ceelasha ciidanka booliiskana soo qabtay oo saldhigga gurigaan tagnay saldhigga ceelasha gurigaan tagnay gabar agoon ahayd bahalkii agoon leeya ahayd tiri haye waa yahaynaan hore aan uga socon waa ka tagnay markaa ka tagnay ciidanka noo imaan haye saas waayo sida noo soo qabtay oo saxda ah waa saas yaa idin imaaday ciidanka booliiska ahi saldhigga ceelasha miya macnaha gurigaas hal mar tagteen bis saakana raadkiina lagu jiraba ya sitaan haye adiga gurigaasaan tagnay sidaas kuu sheegeen raggan gabadhaas aan u tagnay awlada agoon aan haystaa dhacday waa ka tagnay kadib ciidankan ciidanka booliiska saldhigga saasaan idinku soo qabtay adinkoo falkii ku dhex jirtiin ya soo sida maa falkii adoo ku dhex jirtay soo laguma soo qaban ha maadaama aan ku dhahay guri markaasaan tagnay markaa ka tagnayna ciidanka noo imaado falkiina ku jirna ujeedaa